een ku soo dhawow magacaaga adoo ka hormarinayso maadaama aan ogahay inaad tahay gudoomiyaha jaaliyadda Bristol Sportiga magacaaga horta igu hormaray أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحالي هذا محمد عبد الله علي أنا وحنا هاي قدوميها سبورتك الجريدة الصومالية بريستول صار هروش كتاي ويشو aad baad u mahadsantahay maxamed sidaa la socoto maalintii arbacadii waxaa hal iyo eber ku badiyay xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee ka yar da'dooda 17 waxay u soo baxeen final waxa lagu wadaa inay dheelaan maalinta axadda ah bal dareenkaaga 30 sano kadib in xul qaran Soomaali leeyahay ciyaar kama dambaysa uu soo istaago haddii aad ka waranto ما شاء الله رنتي ودرين هذا فرحات دمانتين الصومالية ملك استيجوك تاع الدنيا أنا وواحد لو فرحوا إن الينير الصومالية أندر 17 هاي هركاس يسوق قارن ما تعيارتي كم دمبيش تاعي وفرحات هذا وين دمانتين بخيرة ودرني بواحد بين تسين الينير داسي وحي أركيني بدين كران وحي أركيني يقول جاري كران صدق سنة كبعدي على كيني ومال آدي ونكسر ما تتاجين هاي وحنا همبلية وحنا أورجيني يا مالنتا أحد يسوع سعوته هذه لا هي هذا قولين جاران وحنا كلام همبلية وقدر يا دمان معلمينتي وزارة الدليل سبورتيجا دتكي وقتي يكون بحيي دليل ذا سكان سكول ذا كسر حلي محيه توبر هذا سي وقتي قدر سيني دمان تدوم ما هنغيا أيجنا وحنا رجينا يا قول دمان أنا كو هذا يا مجا جاليد الصومالية دي بريستول aad baad u mahadsantahay waxaa haddana ila soo istaagay wakiilka isboortiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee maaragtay qaaradda Yurub iyo North America intaba Cabdirashiid Islow Cabdirashiid waxaa tahay wakiilkii xiriirka kubadda cagta u qaabilsanaa arrimaha dibadda sida aan la soconno waxaa ciyaartii kama dambaysta u soo baxay dhalinyarada xulka kubadda cagta Soomaaliyeed ee da'dooda ka yartay 17 inta aan ogsoonahana dhammaan waxay ka wada imaadeen dalka gudihiisa bal inta aan su'aal ka weydiin waxa ku dhacay kaalintii dibadda waxaan jeclaan lahaa bal dareenkaaga ina cabirto ما شاء الله هذا وما سنتين بعض سبورتيجا صومال ناشونال تي في درينكي ما أنت لما قياسك ما أنت هيركا ما أنت أنقرسي سنة ما هذا سنو حاس كلا حريرك الصومالي ديكو بدأ عكتا أو وقت بدن قريي ما مركيسة ويا عبد الغني سعيد عرب لمان توت معلمين تا مامولكا كوعا لمان وقت بدن قريين ددالا وقاري كرا مركو حان التصين haddii waqti badan sidaan oo kale loo geliyo dhalinta yar in wax badan la gaari karo waxaan rajaynaynaa future-kana mustaqbalkan insha Allah sidaan si ka badan inaan sidaan si ka badan oo ka qurux badan inaan ku aragno marka aad iyo aad aan u qiireysanahay waxaan rajaynaynaa maalinta hadda finalkana sidaas inaan koobka hanano oo farxadeena ayna kala go'in aad shucuurtay lama qiyaas karo maanta Cabdirashiid Islow maadaama aad tahay wakiilka xiriirka kubadda cagtana adiga aad nagala joogto dad badan ayaa waxay isweydiinayaan dhalinyaradaasi intee laga kala keenay ma dalka gudihiisa unba mise qaarka dibadda haddii dalka gudihiisa tahay inta badan wararka waxay noogu soo gaareen in dalka gudihiisa kaliya laga keenay dhalinyaradaas muddana xareysnaayeen doorkii dibadda waa laga maarmo misleeda hadda sidaan hore u sheegnay annaga xiriirka waxaan ka caawin jirnay waxay ahayd doorka dibadda xiriirka maanta awooddiisa waa dareemi kartaa oo waddankii nabadaa ka jirto oo kooxihii caadi u cayaaraan horyaaladii way cayaaraan dugsiyadii waa la cayaaraa jaamacadii waa la cayaaraa marka annaga doorkayna dibadda wuxuu ahaa jiray waqtigii aad u adkaa oo dhibaatada badan jiray waddanka inaan dibadda ka saacidno maanta boqolkiiba boqol dadka ilmaha cayaaraya waa dadka gudaha ka yimid ayay ahaayeen waqti badanaa la geliyay 2 sano ayaa tababar lagu hayay hoosaa laga soo bilaabay ilaa maanta waa la isku hayay ilaa hadda waxay heerkaada u jeesmaan wax maalin kale inta la soo aruuriyay oo hal hormar isla markii heerkan gaarameen waxay ahaayeen dad muddo la soo tababarayay waqti badan la geliyay oo maanta arkaysa mirihiya maanta la guranaya marka waa dadka ciyaartooyda maanta la haayo waa ciyaartooyda gudaha ayay boqolkiiba boqol ay yihiin aad baad u mahadsantahay Islow waxaan rajaynaynaa guul maalinta axadda ah aad baad u mahadsantahay okay waxaad la socotaa in xulka qaranka Soomaaliyeed kubadda cagta ay maalinta axadda ciyaar kama dambaysa la dheeli doonaan xulka qaranka dalka Tanzania waa dhalinyarada da'dooda ka yartahay 17 dareenkaaga والله درينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قام مجاعي محمد عبد الله محمد كم مجاعي دير هند عبد الله كيما هذا مجال بريستول أنا قدوميها سبورتس كأما قدوميها معركة بريستول ستارز
oo matalayo guddiga Bristol Stars maxaa ku faraxsanahay qarankii Soomaaliyeed inuu maaragtay heer sare gaarayo dhalinyaradeenii soo maaragtay muxuu ahaay tusooyaan maaragtay dhalinyaradeenna tusooyaan aqoontooda iyo maaragtay sidii maaragtay muxuu ahaay kartidii leeyihiin oo tusooyaan waana ku faraxsanahay waxa maaragtay waa arin warsame waxaan ku suganaa caawa magaalada London sida aad la socoto maadaama aad tahay dadka u dhunduleela isboortiga gudaha ka socda iyo kuwa dibadda jaalidaha Soomaaliyeed ay ku qabtaanba maalinta axadda ah ayaa da'yarta Soomaaliyeed xulka qaranka Soomaaliyeed da'dooda ka yartahay 17 ayaa waxay u soo baxeen ciyaarta kama dambeynta muddo intaan burbur ku jirnaa ilaa ay heerkaas oo kale koox Soomaaliyeed ma ay soo gaarin dareenkaaga hadaa cabirto aad iyo aad waa maasanta Cabdulaahi Wish waxaan salaamayaa bahda SNTV ee London iyo daawadayaasha wallahi markaan horta maqlay in ciyaarta ay ka badiyeen kooxda Kenya aniga horta waxaanba soo xasuustay waagi aan ka badinay Burundi uga soo badinay gurigooda oo haddana markay gurigeena imaadeen naga badiyeen war waxaan dhahay Bologna markuu bilowdo maxaa loogu sheegi waay waaba inaan tagnaaba dhici lahayd haddana hadday yimaadeen finalkii alxamdulillaah rabbil caalamiin wax kasta waxay u baahan yihiin sabr ay u baahan yihiin iyo dulqaad iyo isku duubnaan horta waxaan u rajaynayaa guul waxaan filayaa inay guulaysan doonaan waa magac wuu soo noqday waxaan rajaynayaa in dadka isboortiga qaabilsan maamulka inay gacan weyn siiyaan si mar kale haddana final kale waxaa nasiib u yeeshay in xafladan caawa ay isugu yimaadeen bahweynta isboortiga ka kala yimid qaaradda Yurub iyo kuwa ku dhaqnaa dalkan Ingiriiska inaan kula kulmo xidigay waaweyn oo caan ku ahaa dalkeenii naadiyada ugu tunka weynaa sida naadiga Jenyo iyo Horseed waxaa garabkayga istaagan Maxamed Ismaaciil iyo Axmed Nuur Sayga Ruushka sida aad la socotaan markii ugu horeeyay ku soo dhawaada TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxaan jeclahay sida aad la socotaan xulka qaranka da'dooda ka yartahay 17 waxay u soo baxeen ciyaar kama dambaysa muddo 30 sano in ka badan heerkan oo kale xul qaran Soomaali matalaya ma ay soo gaarin dareenkiina haddii aad ma aragtay aan ku bilaabo Axmed Nuur Sayga bismillaah horta waa mahadsantahay horta maanta farxadeena lama qiyaasi karo midda labaad oo meesha jirto maanta tanguushan iyo waxan iyo kulay waxa iska leh marka farxad wax lagu soo binayo Khadiija Maxamuud Deeriye oo aan ayidsanahay qofkii kaliya oo maanta yani ma aragtay intay maamul sportska maanta ay u timaado horumar iyo adduun iyo waxyaabo mid ay ka qabato ama yani ma aragtay dhan walba xooga mid ay u saartay sportska inuu yahay horta meesha aan ka muujina midda labaad ciyaartooyda haddii taageero iyo maamul fiican mid ay helaan ay noqotana sidoo kaleeto waxa weeye mid guul mid ay keentaa inay noqotaa marka waxaan leeyahay waan hambaliyana yani taariikhdan ayada ah oo dhaxalka ah oo weligeed mid la gaaray ayna noqonaan kusha waxaan leeyahay hambaliyaan leeyahay waana ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa finalkana sidoo kaleeto midaan gabagabayn inay noqotaa guusha mid ay noo soo raacday inay noqotaa ilaahay idinkiisa taasaan rajaynaa aad baad mahadsantahay Axmed Nuur Maxamed Ismaaciil dareenkaaga haddii aad cabirto markii ay ku soo gaareen in xulka qaranka Kenya hal eber ay ma aragtay kaga badiyeen xulka qaranka Soomaaliya Uganda oo aan ognahay inta badan wararka nagu soo gaarayna in ay muddo ku soo tababaranayeen dalka Belgium gaar ahaan magaalada xarunta Brussels kadib hal eber aan ma aragtay kaga badinay maalinta axadana finalka aan isku beeganahay Tanzania bal dareenkaaga 30 sano kadib in xul qaran Soomaaliya matalayo dhalinyaro da'dooda aad u yartahay 17 ka yar inay heerkan soo gaarsiiyaan calanka Soomaaliyeed haddii aad cabirto bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim wiish aad baan mahadsantahay TV-ga qaranka isagana sidoo kale aad baan ku hambalyeynaa runtii meel kasta oo isboortiya annaga bah isboorti baan nahay inaad mar walbana daba taagan tihiin dhinac kastaba ha noqoto ciyaaraha lagu qabto xaafadaha London amba xafladda saan oo kale walaalaheen suuqii maanta caawa aan u joogno xafladoodii munaasabadda qorituurka nooga yimid dalka Sweden runtii annaga martinoo yihiin aad baan ugu faraxsan iyagana oo hambalyeynaa horta sababtu waxay tahay intii waddankoodii ka soo tageen in annaka maanta waddanka aan degannahay inay qorituur ku sameeyaan waa farxad bayna wada tahay marti baan yihiin aad baan ugu mahad celinaya runtii waan ugu hambalyeynayaa inuu ilaahay si khayr qaba noogu dhammeeyo haddaan dib ugu noqdo su'aashaada xul qaran Soomaaliyeed oo 30 sano waa runtaa
aad baan ugu faraxsanahay muwaadin Soomaaliyeed baan ciyaartoy maalmaha ka mid ah Soomaaliyeed baan ahay oo xulka qaranka aad baan ugu faraxsanahay runtii inay maanta under 17 amba 17 jir dadka yar inay caawa amba axadda ay ciyaarta kama dambaysa u soo baxayaan annagoo waliba dee wadan hadda dee Soomaali baan wadanay dadkana daawanay wada Soomaali waa ognay 30 sano ugu dambaysay iyo dhibkan ku jirnay inay maanta ciyaarta kama dambaysa ka qayb galaan runtii qof kasta oo dhiig Soomaalinimo ku jirto qof kasta oo Soomaaliya qof kasta oo wadankaas Soomaaliya ama wadankan u dhalanay ka soo jeeda aad waa inuu farxad bayna wata kulisan u dhannahay waxaana rajada ka sokooba waxaan horta u hambaliyeenayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan odayaasha madaxda wasaaradda isboortiga xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta guusha ay gaareen kullaba iyagun baa ka dambeeya wish waxaan nasiib u yeeshay in finalka anigan soo daawado xamar baan u socdaa barito hadduu ilaahay yiraahdo Kenya u socdaa muqdishoonan tagaya axadda isla markaas saacado gudaheeda madaxweynaha Israaciil waxaan u soconnaa inaan finalka soo qayb galno aaligu cazumay inaan dhalinyaradaas aan xoogaa aan dee بعدما marka محمد عبد الله محمد فرماجو madaxweynaha dawladda federaalka aad baan ugu mahad celinayaa kaligeena ma ahan dhowr qof baan nahay oo waliba muddo badan kala maqnay xasan cafiif yaxya walaalkii saaxiibkay oo isagna qadar ka imanaya bashiir cilmi oo isagna Sweden ka imanaya iyaga isku falaad weeyaan anigana xaggan ka baxay duulayga Kenya aan isku wada imanayna dan dawlad baan naga qaadaysa safaaradii baan lagu ballamiyay xamar baan tageena xamar marka tagno saacado gudaheeda dawladda iyo wafdiga madaxweynaha hogaaminayo ayaan raacaynaa waana ugu hambalyeynaa runtii waana ku faraxsanahay sababtu waxay tahay nin isboortiga madaxweyne noo noqday marka dee intaas oo madaxweynaha soo maray runtii waxaan leeyahay anoo kuwa kale waxba ka sheegin aad baan ugu hambalyeynaa sababtu waa baan xasuustaa at least waxba naga xasuustaa inaan dhalinyarada dhiirigelin oo xoogaa marka waa ka qayb galay farxadaasna waa ku sheegayaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u rajaynaynaa dhalinyarada under 17 Soomaaliyeed guul baan u rajaynaynaa insha Allah inay maaragtay ku guuleystaan koobaha magac Soomaaliyeed waa markii noogu horeysay aan final imaan under 17 aad guul baan u rajaynaa bile maadaama aad tahay ciyaartoydii hore caanka ahaa bal dareenkaaga runtii dareenkayga aad u kacsan maxay leh waan ku faraxsanahay inay final yimaadaan kulay final kalimaan kulay aniga waxaan u arkaa mar haday final yimaadeen halkii laga rabay wayba soo dhaafeen marka ma sha Allah waxaan leeyahay hambali ayaan leeyahay shaqada weyn ay qabteen maarkan dartamatiinka iyo macalinkoodaba iyo dadkii maamulka ka soo shaqeeyay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed waana farxad annagana maaragtay garabkooda aan taaganahay kulay aniga ahaan bila ahaan maadaama ciyaar dhowr jir ciyaaraas mar haday yimaadeen final بسوق جدا سيفنا القاعدين هلا مارتي مش لقى الربي ويمدن أنت دمنا إن شاء الله تعالى ماركت هدي قادني إن كل وكل كوب كل هالكحبة هالوطن بقى هذا كل ما دام أي وطن كان فاينل أي مدين وضمن بدنا نلاقي فلان أي سوي ماركت أي صوم مرين هذا ماركت فاينل كا وحما أنا مو أرك مرة هدي أي مدين فاينل كعيارة كلي وقدم بس أينا هدي قادن وين قادن هدي لقى بدينا وكالة البداية كل جول بنتاجنا الحمد لله أدبل ما سنت أدبل waxaa hadda maaragtay garabkayga taagan Cabdinaasir Sool oo kamid ah wariyaasha isboortiga muddo badan ku soo jiray maadaama aad la socoto in xul qaran Soomaali uu leeyahay ay maalinta axadda final ay ciyaari doonaan ciyaar kama dambeyn ah bal dareenkaaga haddii aad cabirto 30 sano kadib waa sidee wallahi dareenkayga waa mid aad u weyn waxaana ku sheegaa inaan berrito hadduu alla yiraahdo aan u socdo Bujumbura inaan ka qayb galo ciyaaraha finalka waana sharaf iyo qiimo aad u weyn oo bulshada Soomaaliyeed u soo hooyatay waa taariikhdii markii ugu horeysay raggaas under 17 waxay noqonayaan taariikhdii Soomaali baaldahab ay ka galayaan dadkii koobka haystay oo Uganda ay ka badiyeen waxay ka soo badiyeen Kenya dad badan marka taariikhda Soomaali waxay ka gali doonaan baaldahab waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo oo meeshana qof walba oo Soomaali ka tuso telefishinka qarankana waa joogaan idinkana waa soo gudbinaysan waan ku faraxsanahay taas aad baad u mahadsantahay waa iga farxinaysaa war farxad leh waxa la sheegay in madaxweynaha wafdi hogaamin doono in halkaas ku wajahan yihiin insha Allah waana ka qayb galaynaa waan ku faraxsanahay arrimahaas aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir Sool waa arki doonaa insha Allah wakiilka wasaaradda dhalinyarada isboortiga qaaradda Yurub iyo North America Masar Cabdiqaadir Faarax Biriq dhankalna ahaa ciyaaryahan horay u soo maray waayadii barnaamijkan adigii heer koowaad ee batroolka marka ugu hore ku soo dhawo telefishinka qaranka Soomaaliyeed marka xiga sida aad la socoto xul qaran uu leeyahay dalka Soomaaliya
muddo 30 sano kadib in maalinta axadda cayaar kama dambays final ay ciyaarayaan dareenkaaga waa sidee runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in xulkeena qaranka Soomaaliyeed U17 17 sano runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan weligaan soo gaarin wiishow taariikh history hadda la marayo weli ma la ciyaarto waxaan jecelnahay kooxda Tanzania inaan ka badino oo weliba horna ugu badino oo weliba hore u sii socnaa diilaarada farxad weyn noo tahay haddana waxay noqonaysaa history taariikh weyn dhacaysa diilaarada insha Allah macnaha waxaad leedahay koobka halkaas ayuu aadi doonaa koobka markii noo horeysay football anaga maadaama ciyaari jirnay koobkii ugu fiicnaa ugu lejinsanaa aan qaadnay noqonaysaa kan diilaarada insha Allah aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Faarax Abiriq